وزارة جمهورية فدرالية الصومالية مدحda dowlad goboleedyada rajaal ku-xigeenka safiirada internationalka kulligii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi arrinta ku saabsan amniga waxaa moodaa in marar badan aad looga hadlay. biyaha webiga jooga 30 kilomitir in ka badan bay badda ku darsamaan. waxaana ugu wacan cid ka faa'iidaysata ma laha. biyaha 30 kilomitir ku darsanaya meelaha ay ku fataan cawskii ayaa xidha wadooyinka waa la mari waayaa. xoolihiina waxay daaqaan beelahii. abaartu waa joogto biyahanagina khasaarahaasaa ku dhacaya. waxaa laga hadlayaa in ka badan 20,000 oo amisoona ayaa waxay joogtaa Soomaaliya. in ka badan 30,000 oo Soomaaliyana waa la helayaa. shabaabna waa lala dagaalamayaa. amisoon bishii wax ka badan 20 milyan baa ku baxda. waxayna leeyihiin logistico. markaad la hadasho waxaa laga hadlayaa dhaqaale xumo inay jirto, logistica yaraan ay jirto. international community waxay leeyihiin waa in la dhimo amisoon oo dhaqaale looma hayo. waxaan aad u garan lahay waxaan isfuuliga markaan kulli isku wada dardaro waxaan u baahannahay in la gaaro waqtigii la xisaabtami lahaa. waxaan rabaa inaan ka codsado dowladda Soomaaliya, international community-ga, donoriska, wadamada TCC-da in shir la isugu yimaado degdega oo ay ka soo qayb galayaan Soomaaliya, wadamada ciidamada Soomaaliya ka joogaan, UN-ta, African Union iyo dowladaha waxbixiya intuba oo lagu xisaabtamayo la isweydiinayo waxaanaan bixinaa xageebu jiraa, amnigu xageebu ka socon layahay, maxaa la qabtaa, xagee wax maraya in su-aashaa la isweydiiyo. marka Soomaalida ay ka hadlayso security-ga dhaqaale aad badan bay ku sheegtaa iyo ciidan tiro badan oo 28,000 iyo hadda in indho iyo faraba laga qaadayo. amisom waxay ka hadlaysaa xoolo badanna inay ku baxaan, logistic ay u baahan yihiin, wiilashoodina ay meesha ku waayaan. UN iyo European Union internationalka waxay leeyihiin dhaqaalaha bixin jiray oo lagu batay. aan xisaabtana dowladda Soomaaliyeed hal la weydiiyo ciidanka hayso iyo waxa uu qabto iyo waxa ay ka shaqeeyaan. amisom hal la weydiiyo ciidankeedu meesha uu joogo iyo waxa uu qabto horumarku gaari kariyo wuxuu samaynayo. regional states-keedana sidaas oo kale hal la isweydiiyo. markaan xisaabtanay wax isla qeexnay iyo kuwa deeqda bixinaya intuba aan ku salayno marka waxa aan qabanayno qof walba meelaha lagu hagaajiyo la yiraahdo amisom baahidiina intaasay ahayd, waxaasaa la idin dhamaystiray, muddadaasaa haysataan, road mapkaasaa la isku ogyahay, waxaanu qabannahay meelable in la tago shaqadaana aad qabataan. Soomaalidana la weydiiyo ciidanka intaa leeg baad haysaan, waxaan u baahannahay kharashka intaa leeg baa idinku baxa, sidanaad tihiin, mandatekiina waxaa weeye meeshaasoo la qabto inaad haysaan oo idinka aad keligii joogtaan, meeshaana aad xoraysaan, halkaana aad nabad ka dhigtaan. internationalka iyo qolyaha waxbixiyana la yidhaahdo waxaasaa dhimana waxaa la keeno. laakiin haddaan mar walba shirkan oo kale isugu nimaadno oo isu mahad celiyo, la kala ammaan sheegto, wax fiican la sheego, berina ay halkeedii ku dambayso macno ma samaynayso. waxaan aad uga codsanayaa dowladda Soomaaliya mas-uuliyaddu iyagay saaran tahay inay shirkaas qabato la isu yimaado lagu xisaabtamayo. 10 sano soo dhaafno dadka Soomaalidu waxay ku safraan diyaaradaha shabaabna dhulka gudihiisa oo dhan iyaga haysta. anigu waxaan ku talinayaa hadalkayga ma doonayo inaan badiyo. dowladda Soomaaliya ha qaadato mas-uuliyadda leadershipka in la xisaabtamo amisom, UN, donoriska, Soomaalida, stateska oo kulligood xisaab la isku ogaado. waxaan isku ogaanana beri aan ku xisaabtanno nidaano qofkii meeshiisii ka soo bixi waaya markaa wixii su-aalo la xidhiidhaa la weydiiyo. laakiin waxaan aad uga cudur daaranayaa shirarka badan ee laysu mahad celinayo, ee ammaanta laysu sheegayo, ee wax fiican baa la qabtay la odhanayo. magaalada xamar intiina kulli hadda internationalkay joogta garoonkaad wada degantihiin, garoonkaad ka dhoofaysaan,
diyaaradii Nairobi waqtigeedii jooga timeka rush time ku waa la wada ordaya waxaan u baahanahay amni in la helo aad magaalada gudaheeda geli kartaan la bari karo wadanka la joogi karo laakiin sidaan iyo mahadcelinta faraha badan hal la naga daayo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum.